Suuqgeynta dhijitaalka ah waa dallad ballaaran oo daboolaysa guud ahaan baahiyaha suuqgeyneed. Muuqaalkeena maanta wuxuu kaa caawin doonaa inaad fahanto tiirarka ugu muhiimsan ee suuqgeynta dhijitaalka ah, taasoo awood kuu sii doonta inaad dhisto istiraatiijiyad suuqgeyneed dhijitaal ah si aad u wanaajiso xayeysiintaada ayada oo loo marayo kanaalada internetka ah sida SEO, social media, email marketing iyo kuwo kale oo badan. Mowduuceena suuqgeynta dhijitaalka ah waxaad ku ogaan doontaa waa maxay suuqgeynta dhijitaalka ah, sidee buu u shaqeeyaa suuqgeynta dhijitaalka ah, faa'iidooyinka suuqgeynta dhijitaalka ah iyo noocyada suuqgeynta dhijitaalka ah. Aanu ku bilownay waa maxay suuqgeynta dhijitaalka ah. Suuqgeynta dhijitaalka ah oo sidoo kalena loo yaqaano suuqgeynta khadka tooska ah waxaa loola jeedaa xayeysiisyada lagu bixiyo kanaalada dhijitaalka ah si kor loogu qaado sumadda loona kasbado macaamiisha ay suurtagal ka tahay iyadoo loo adeegsanayo internetka iyo noocyada kale oo isgaarsiinta dhijitaalka ah sida Search Engine Optimization ama SEO marketing, social media marketing, email marketing, SMS marketing iyo xayeysiisyada ku saleysan shabakadaha sida website-yada. Marka la soo gaabiyo, haddii ololaha suuqgeyntu uu isticmaalayo mid ka mid ah kanaalada warbaahinta khadka tooska ah ee aan kor ku soo xusnay, waa suuqgeyn dhijitaal ah. Macaamiisha maanta waxay si weyn ugu tiirsan yihiin habka dhijitaalka ah si ay u baaraan alaabta. 77% macaamiisha ayaa internetka ka baara waxa ay doonayaan ka hor inta aysan la macaamilin, sida laga soo xigtay cilmi baaris ay sameysay HubSpot. Dhanka kale, 51% macaamiisha ayaa sheegay inay Google u isticmaalaan inay ka baaraan alaabta ka hor inta aysan iibsan. Sidee bay u shaqeysaa suuqgeynta dhijitaalka ah? Suuqgeynta dhijitaalka ah waxay isticmaashaa xeelado kala duwan si loo gaaro macaamiisha. Haddii ujeedadu tahay in lagu tijaabiyo inay wax iibsadaan, kordhiyaan wacyigooda sumadda, ama ay si fudud ula falgalaan astaantaada. Suuqgeynta dhijitaalka ah ee casriga ahi waxay ka kooban tahay nidaam ballaaran oo kanaalo ah oo ay ku jiraan social media, website, SEO, PPC ama pay per click. Haddii aan soo ogaanay wuxuu yahay suuqgeynta dhijitaalka ah iyo qaabka uu u shaqeeyo, haddaba waa maxay faa'iidada ay leedahay suuqgeynta dhijitaalka ah? Suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa kaa caawin karta inaad barato dhageystayaashaada ama macaamiishaada, inaad barato macluumaadka muhiimka ah ee ayaga ku saabsan. Suuqgeynta dhijitaalka ayaa kaa caawin karta inaad barato ama aad si toos ah isugu xirnaataan macaamiishaada si aad u fahanto baahiyaha iyo isbedelada ay u baahan yihiin si aad kor ugu qaaddo ganacsigaaga. Sidaa daraaddeed, faa'iidooyinka suuqgeynta dhijitaalka ah, midda koowaad oo waxaad baranaysaa oo aad si toos isugu xirnaan doontaan macaamiishaada adigoo ogaan doona baahiyahooda iyo sida ay wax u rabaan, taasoona suurtagelin doonta inaad isbedel buuxa ku sameyso ganacsiyadaadii ama adeegaaga bixinayso. Lambar 2, qarash badan kuma baxo. Marka la barbar dhigo habka suuqgeynta dhaqameedka, suuqgeynta dhijitaalka ah waa mid raqiis ah. Waxaadna abuuran kartaa baraha bulshada oo adigu ku abuuranaya si free ah, kadibna adiga ayaa xayeysiintaada ku sameysan karo. Halkii marka dhanka hore loo yimaado ee dhaqameedka aad sameyn jirtay inaad idaacad ama telefishin ama joornaal aad ku soo xayeysiiso dhowr meelo kala duwan, lacag kala duwan aad ku bixiso. Laakiin midkan adiga ayaa abuuranaya waliba si lacag la'aan ah kanaalo social media, adiga ayaana ku xayeysanaya lacag yar inta ku shubat. Faa'iidada saddexaad waxay tahay waxaad u suuqgeyn kartaa oo aad xayeysiintaada ama alaabtaada ama service-kaaga aad gaarsiin kartaa ama calaamadda ganacsigaaga ama magaca ganacsigaaga aad ku weyneyn kartaa qof kasta iyo meel kasta uu joogo adigoo u maraya xayeysiinta dhijitaalka ah. Lambar 4 ama faa'iidada afraad ee leedahay suuqgeynta dhijitaalka ah, suuqgeynta dhijitaalka ah waa mid aad la qabsan karto.